banaanbaxayaasha ayaa lug waxay ka soo bilaabeen suuqa kalluunka ee kulmis iyagoo ku yimid agagaarka taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere. Banaanbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ga soo horjeedaan dad la sheegay inay doonayaan inay kawaanka ka dhigtaan hotel. dadka banaanbaxa dhigayay ayaa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa ay wataan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda u diiday inay maraan inta isku xirta xeebta Liidiya taalada daljirka Dahsoon. qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigayay ayaa ka warramaya saameynta ku timid ganacsigooda iyagoona baaq u diray madaxda ugu sareysa dalka waxayna sheegeen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka lagu hayo. waxaana ka mid ahay ganacsatada oo kalluumaysatada ah oo ka shaqeysa kawaanka Liido. meeshaasi waxaa ka jira dhibaato fara badan. kawaankii wuxuu xiran yahay maalintii labaad. waxaa jira hanti fara badan oo meesha saaran oo kalluun fara badan oo meesha saaran ee doomanka oo aan ilaa hadda aan la dijinin oo khasaaro fara badan dadka ka soo gaaray. madaxda dawladana waxaan ka codsanaynaa haddii ay maaragtay wax ka qabanayaan in ummadda shacabkooda ay u turaan. cabdicasiis ayaan ka soo bilownay banaanbax waxaan ku nimid degmada Boondheere busley meesha la yiraahdo. waxa weeye waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh inay shacabkeeda wax u qabato dadkaas dhibaataysan wax u qabato iyo hantidaas halaabay. intuu socday banaanbaxa ayaa waxaa goobta soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya waxayna u sheegeen dadweynihii dibadbaxa dhigayay inay dib ugu laabtaan goobtoodii ganacsi ayna joojiyaan banaanbaxa. intaa kadib ayaa waxaa albaabada loo furay suuqa kalluunka ee Kulmis ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir 2 maalin kadib xirnaashii suuqaasi.